horeeyo wadanka waligood ka bixin oo dastuur kaga qaaday oo maanta ku aaminsan yahay oo ciidamadii nala dul dhigay oo hanjabaad ay socoto annaga keenay farmaajo waxaan ognahay hadii inteena joogno 112 baa hadda meesha fadhiya 112 inay ka keeni karto ay meesha ku ridi karto sababta shalay annaga dooranay Soomaali weyn waxaan u sheegaynaa hadii la burburiyo golaha shacabka xildhibaanada la burburiyo Soomaali walba waxay ku noqonaysaa meeshii kale mideeda kale madaxweynaha wuxuu ogeyn inuu dimuqraadi iyo republican uu meeshan ku imaan ee ku yimaaday 4.5 oo reer ahaan u fadhiyo exactly waa sida inuu ixtiraamo sharafta iyo kursiga uu ku fadhiyo inuu annaga aan ku fariisanay oo uu ka hadla caawa berina hadaan laga qaadin nin walbaba hub iyo qoryo in la soo gurto uun buu madaxweynuhu rabaa wax kala diyaar uma Soomaali weynay waa inay badbaadsataan maanta wadankeena tanta Allah waana ka baxay salaam calaykum sanahay xildhibaanada iga horeeyay ee ka hadlay xaaladda dhiilada leh ee ka jirta maanta magaalada Muqdisho ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynayaa maanta inay Soomaaliya marayso dariiq isgoysa oo ay kala dooranayso laba inay raacdo dariiqa hooga iyo baaba iyo burburka dawladnimo in dib loogu noqdo kaligii talisnimo iyo dictatorship Soomaaliya u yeelay indhaha maanta aynu leenahay iyo in aqligu shaqeeyo sharciyadu shaqeyso qaanuunku shaqeeyo oo aynu helno dhul ama ardiyad mushtaraka oo aynu ku shaqeyno waxaan u jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed maanta cid ay haysataa ma aha baarlamaanka Soomaaliyeed waxa weeye dad duulaan ku ah oo cudwaan ku qaaday baarlamaankii Soomaaliyeed golaha shacabka Soomaaliyeed ku qaaday cudwaan waxay uga gol leeyihiin inay talada ururiyaan oo iyagu halkan dib ugu aasaasaan kaligii talisnimo Soomaaliya ay soo dhaaftay 1999 ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay soo fahanto inaan lagu marjara habaabin jawaariya dadka ay hayaan jawaariya dadka isma hayaan mashruucan hor taaganahay waa mashruuc halisa waa mashruuc mugdi gelinaya mustaqbalka siyaasiga ee ummadda Soomaaliyeed waan ka baxay wassalaamu calaykum waraxmatullah intay sheegeen aan la qabaa waxaan ku dari lahaa laba kelmad aan ku dheeraanayna waxaan leeyahay dawladdan maalintii la doortay waxay la magac baxday nabad iyo nolol waa fawdo dawlad fawdo ay waay maalintay timid ilaa hadeer ay fawdo wadanka ku wadaa wayna inqilaabaan u kaseynaa waxa ay hadda wado waxaan leenahay madaxweynaha waxaa lagu doortay sidii gabadha walaasha iga horeysay dastuur ragga ka qaadana waa ogtahay madaxnimada ka horeeyay wadanka fawdaha u horseedin fawdaad u horseeday inqilaab arabta inaad golaha shacabka ku qabsatid waana qabsateen ee fawdadaas aad rabtay inaad ku bixisid jawaaray waaw waxaan ugu ballan adna inaad ku baxdid aad sii joogayna wadanka fawdad bilowdaa sii soconaysa haddaa u malaysid inaad fawdo ku bixinaysid jawaaray adna aamay sii joogaysid waawdaa ku bixisaa kugu dambaysa waana ka baxay waa maasanyiin xildhibaanada sharafta leh xildhibaanadan waxay ahayd guddi ay xildhibaanadu iska soo xuleen inay shirkan jaraa'id oo saacadihii u dambeeyey ku jira oo aan geli rabno maalinta sabtida ahayd ee 31 ee ku astaysnaan doonta ama maalin Soomaaliya badbaado ama maalin Soomaaliya goday ku dhacdo maalinka 31du maalmo hore oo murugo leh ayay ama ku biiri doontaa ama maalmaha xorriyadda 1 Juulaay iyo 26 Juun bay ku biiri doontaa marka ma saacada ka hor maalinkaas ayay xildhibaanadii shir jaraa'id qabanayaan waxaan rabaa inaan xasuusiyo dadka Soomaaliyeed dagaalka madaxda hadda joogta ee iska jecel colaadda iyo gafka iyo ku xadgudubka dastuurka waxay ka soo bilaabeen gobolada fogfog waxayna caawa ka dhex socotaa madaxtooyadii Soomaaliya gudaheeda yani fiiri nimankii loo dhiibtay inay xukunka iyo nabadda ka baahiyaan Soomaaliya waxay shaqo ka dhigteen inay goboladii dagaal ku qaadeen dadkii Soomaaliyeed qayb dhiibeen siyaasiyiintii xaafadaha kala deganaa ay weerareen haddana inay ku soo aruurtay madaxtooyadii villa Hargeysa iyo villa Soomaaliya iyo golihii shacabka meel iyadoo dhan 400 mitir isku jirta ayay dagaalkii ku soo eedeeyeen waxaan madaxweynaha xasuusinaynaa cid kale aad saari mayna waxa socda
madaxweynaha waxaan xasuusinaynaa intii akhyaartii xildhibaanadii ay xasuusiyeen oo ah dastuurkaas inuu ku joogo madaxweynuhu dad tegay oo dhammaaday ayuu ficilkoodii jilayaa dadka soomaaliyeed ay ka dawoobeen ay ka soo caafimaadeen dictatorship iyo in lagu fekero awood marooqsi iyo resourceka dawladda in sidii la rabo loo isticmaalo taas waa laga soo gaboobay isla xisaabtan iyo hufnaan iyo daahfurnaan iyo dimuqraadiyad xilligeedii baa la joogaa waxaan leenahay madaxweyne kuu hirgeli mayo afgembigaas waa afgembi fashilmay oo faaruqa oo xikmadi aysan ka dambayn golaha shacabkuna waa jirayaa waana kaa dambayn doonaa waxaanan xildhibaanada golaha shacabka ugu baaqaynaa runtii inaysan arrimaha shakhsiyeyn oo jawaari iyo maa jawaari aysan tegin xildhibaan sharaf yeelan doona berri kadib ma jiro waxaanan arki doonnaa kuwa hadda jidbaysan oo berri caraysan kuwa waana la siray iyo wixiina loo ballan qaaday maanan helin waxaan ka digaynaa laaluushka hantida qaranka loo adeegsanayo waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo xiro berrito baarlamaanka waa la tegayaa sida xildhibaanadu sheegeenna amnigooda iyagaa ka wakiila shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dawladdii dimuqraadiga lagu doortay inay isku beddeshay mid colla ah oo rabtay inay afgembiso hay-adihii sharciga ahaa 3 hay-adood baa meeshaan jirta 3dii hay-adood tii garsoorka horey baa loo qaatay midna waa midda duulaanka ku jirto oo executive-ka middii saddexaad oo madaxa bannaanayd oo ahaa golihii shacabka iyo baarlamaankii soomaaliyana duulaan baa lagu yahay taas macnaheedu waxay tahay awooddii oo dhan berri kadib anaa la wareegaya taasi ma soconaysaan leennahay